السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمان أصحابتنا داوانيسا halkan naga daawanaysaan waa YouTube channel ka wariya Cato Sharaf fadlan hadii aad ku cusubtahay channel kan riix gambaleelka subscribe like share saar commenting waa xaqiina in maalin qurux badan ayaan idin leenahay idin ahaantiin basida tudintihiin ama aad noo daawanaysaan maanta waxa ila joogta maanta oo Yasmin loo yaqaano oo aan in kusoo dhaw in awalan YouTube channel ka wariya Cato Sharaf ما شاء الله دوا عطوش هذا ما سنتها كمان إلنا إن أنت نداونيس أنت مقلكين ديسني دوا هذا نعمة علمكم سنين إن أنا وحنا هاي قف لو أكون يعني إن شاء الله ونسوا عن بحدونا ونبغى بردونا دولا كلام نقول صدقني ما عندنا كشين محايدة هاي اسمها دقات الداشو إن شاء الله بس يحرق ونسوا بحدونا أصلها دونا ونسحرير دونا دولا كلام نقول إن شاء الله إن waxaan ku leeyahay Cato ma santa in sidoo kale inta sida barnaamijka uu soo dhisay aad garab u siisay waan ka imad celinaya waan gartay Yasmin waa markii ugu horeysay oo aad ka soo hormuuqataa in barta YouTube-ka in asxaab aad u badan waxay kaliya ka garanayaan social media ama Facebook in maxad dareemaysaa maadaama ay tahay maalintii ugu horeysay oo aad YouTube kasoo dhaxmuuqanayso ما شاء الله ورتنا أنا فرحسنا وما كنت ورسلت يودك أنك قبقاته إن جعل هاي ولا عليه إن الإلف السلام حانك أون عادي يعني يصدق كلمته ينقف كلمته دونوس وبيرون أنك جعلنا هاي وعس وجود دونا إن الدعوة يعني إن ما شاء الله ما أنت ورسي هذا فرحسنا عطوش أدنى وتكون ما سنتها صدق كلمته in waan gartay in maanta sidoo kale wareysiga waa maalintii ugu horeysay maadaama inta badan aan isnaqaanay aniga iyo adiga kaliya oon saaxiib kor laakiin in wareysi inaan meel soo fadhiisana aan kula yeelan marka maxaad leedahay asxaabta in waxaan gaarnay 2000 oo subscribe asxaab aad u fara badan halkan ku xiran oo barnaamijyada aad u jecel maxaad leedahay asxaabtaas ما شاء الله عين سوي ما سيهين إنت استوينا دعوانا عين ولا عليه المسلمين تاع إن ما شاء الله هرتين هذا نقول فرح سنة هاي إن سيد قروح بدل إنه دعوانا عطاش ما أنت ورسالة بريس أسلق عادنا ما شاء الله إن شاء الله إن ما أنت ومالين نسامح دون طايا صفي عن حقيقة أصل جديد دونا دولا كلام نقول ما أنت منو بلاوة waan gartay in Yasmin waxaa jiro barnaamijyo aad caan ku ahayd oo ku soo caan baxday in maxaa kamid ah asxaabta ma u sheegi kartaa إن هاني صفي عنه لكن إنا بلا واجع لا أو عن بحمل عن منبحين لكن هذا وضل أمرايا قنسي ما شاء الله وليسوا قوانا قنسي وليها لكن سويل ما نشابع لكاد كذب وانتونا يا إن شابه ولا كلام in waxyaabaha aad jeceshahay inaad asxaabta u soo jeediso maxaa kamid ما شاء الله سيدو كلنت واجع لنا فرحة أسلق بسنو إن هذا فرحسن هاي فرحسن إن فرحسن هاي فرحة إذا إلى قبسان إن ولا له يا ونجعل مرود إنك قصلسية إن هذه حناقصيه إنك قصلسية هذه فرحسيه إنك حنجيو ونجعل عمر بالبو إن شاء الله وأسلقار الدنيا بالله waan gartay in Aisha halkan waxaa ka baxa aan iraade Aisha abkii wajhi marka in Yasmin halkan waxaa ka bax barnaamijyo aad u xiiso badan warar riwaayado majaajilo barnaamijka jecesha inaad ka qayb qaadato maadaama aad ku soo biirtay in teamka إن مجاجلة هذا نجعل لها إنك قيب قاته بالله كرام إن شاء الله waan gartay in asxaabta in wixii aad ku dhiirigelin lahaydeen ama aad oran lahaydeen in waxaad ku soo qori kartaan halka commentiga laga aqriyo oo يعني كومنتيada iyo barnaamijyo aad u xiiso badan soo bandhigi kartaan in wixii aad jeceshiin ina halkan lagu soo kordhiyo sidoo kale waa soo diri kartaan in sidoo kale intee shalaytu waxa soo baxday riwaayad aad qaali u ahayd laakiin maanta ina reaction ka bixiyo waan rabay oo suurta galaysa معلق وسجل in Yasmin marka asxaabta waxay leeyihiin Yasmin maxay jeceshahay in nolosheeda ay ku soo kordhiso YouTube-kan maadaama ay ku soo biirtay in Soomaalidana su'aal aad u badan ay isweydiinayaan in sidoo kale intee waxaa jira dad markay soo caan baxaan iska tagayo oo meel kale aadayo in iyaga oo weli nafsadooda maareyn tusaale ahaan hadii aad adiga noqotid qof social media magac aad u sareeyo ku leh oo soo caan baxay oo barnaamijyadiisa la dhacay in maxaad rajeynaysaa inaad noqoto
inay noo ziyaadaan waa jeclahay insha allah waa noo ziyaadi doonaan laakiin se ani meel aan kusoo canbaxay inaan ka danaysto ma jeceli waayo meesha kusoo canbaxay ayaa jeclahay inaan macaamilka lagu sii yeeshto oo tiimka aan badsano waa jeclahay insha allah waan gartay sidoo kale inta asxaabta halkan waxaan jeclahay inaan idinka sheegay in ay jiraan dad aan doonayna inaan qaadano oon tababar aan siino si aan usii kordhino xirfadda jilaayaasha wariyayaasha iyo sidoo kale inta akhriyayaasha maadaama janalkan uu yahay janal caan ku ah barnaamijyo kala duwan haddii ay noqon reaction haddii aad jeceshahay in adiga lagu soo saaro oo aad jeclaan lahayd in barnaamijyada aad ka qayb qaadato ama talooyin aad noo soo gudbiso waxaad noogu soo qori kartaa halka commentiga laga akhriyo anagana waan soo dhaweynaynaa cid walba oo jecel in barnaamijyada ay ka qayb qaataan marka Yasmin waxaa sheegtay in asxaabta aan soo dhaweynayno asxaabta qaarba waxay jecel yihiin qaab noocay ayaa jeclaan lahayd in asxaabta nala shaqeeya maadaama halkan aan diyaar ugu nahay inaan wada shaqeyno والله ميمدة waxay tahay horta aniga waa jecelnahay shaqo xalaal ah oo nadiif noo ah inaan ku shaqeysano in walaalaha muslimiinta hadana la shaqeysano aniga ma diidaneen inta asxaabta horta aan ku leenahay kumatiga inay ugu soo dhigtaan oo ma celinayna waan gartay Yasmin asxaab aad u fara badan inta badan marka ay wiil iyo gabar barnaamij soo jeedinayaan ama ay soo duubaan YouTube hadii ay noqoleen ama Facebook hadii ay noqoleen ay soo dhigaan waxay la kulmaan dhaleeceen iyo eedeen in dadka qaar ay yiraahdaan hebel iyo heblayo way isqabaan ama way israwan maxaad leedahay asxaabtaas oo kale wallahi way u badan tahay Soomaali sidaas ma leeyahay cadaalad ما شاء الله لكن أني مدها لو كفلا لها دي شقيسنا يعني ما هي ميل أهن إني حرير أو كده حياة هذا حرير كده حياة ما مد نظام لكن بدي مجعل إنه لو كفلا شقيسنا ما لو كفلا الصعودة إن حرير كده حياة يعني هذا حتى إنه حاليا إن سيدا دو ذك فدينه إن ما شاء الله إن سلا أشيل شقيسنا جعلنا هاي مدام ولا لا الناس ولا شقيسنا ربنا إن سومال وحربو كفيل واي وحلي في مني مرهن xiligan waxaa laga yaabaa dadka qaar in commentiga ay ku soo qoraan war labada way dhagay isku yihiin oo kale ama way isku baxayaan marka asxaabtaas oo kale maxaad baaqod u diraysaa wallahi ayin hadii sidaas anaga mid kan bay waad u farsaari lahayn yani calaf iyo nasiib waa uu jiraa asxaabay wax walbana horta inaan ka hor dhacno ma wanaagsan marka asxaabta sidoo kale inta waxaan idin keeni doonaa barnaamij la yiraahdo bara dalkaada hooyo oo aad ku baran doontaan barnaamijyo aad u xiiso badan Yasmin adigoo kale hadda hadii lagu weydiiyo Soomaaliya meeqa caasimad leedahay waxaa laga yaabaa inaad garanaynin caasimadaha dalka Soomaaliya inaad aqaanin sidoo kale inta waxaa jirta madax soo martay dalka inaad garanaynin goobaha taariikhiga ah ee dalka lagu xasuusto inaad garanaynin marka asxaabta u sheeg in waxyaabahaas oo idil aan ka xaqabtiri doono ما شاء الله horta beenta ma midaas waxaan garanayna way jirtaa waxa qaar hadaan garan insha Allah maalin baan isku dayaawaan jecelahay inaan garto waxaan aqoonin aan bartana waa jecelahay marka asxaabta inaan u soo gudbinayno waxyaabaha fikradda ah oo ay sa aqoonin inaan diyaar u nahay inaan la wadaago aniga oo jecel baan sidaas ma sha Allah marka asxaabay Yasmin waatane inta badan afkeyga Aisha jeceliyo soo qawana marka Yasmin waa gabar aad u farxad ana Aisha ma jeceshahay macaa marka Aisha yani in badan studio ka soo muuqatay oo barnaamijyo badan isla soo qabanay ilaa ma ku cusub miya dabas baa ma bali ilaahay marka Yasmin laguma ilaawin oo waxa tahay gabar soo baxaysa oo rajo iyo horumar iyo higsi badan leh Yasmin iyo Atoosh waxay idin leeyihiin asxaabta hadii aad nagu cusub tahiin riix gambaleelka subscribe saar like saar commentigana si waxaan naga daawanaysaan barta YouTube-ka wariye Atooshare waa walaalkeen Atooshare iyo Yasmin Abduqaadir oo iyadana aan walaashin ahna sidoo kale jilay aad aan u ah intaan dib ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay asxaabay idinkama tagine yaana la dhaafin oo waxaan idin leenahay sidaas oo la socda
oo barnaamijyada qadna san soo brans arki doona haduu ilaahay kala noqdo inigana aadan u mahadsantihiin inta daawanaysa inta maqalkeena dhegeysanaysa u mahad celinaya inta aan dib ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo maana Allah isma dhaafno muuqaal dambe